السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida nagala socotaan waa maalinimo khamiis ah bisha December waa soo doon sanada 2021 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaal wali ka socda furinta la isku mari laayahay ee Abala ee duleedka magaalada caasimadda u ah gobolka Tigreega ee Makale. kooxda TPLF oo sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya ay burbur u geysteen masaajida ku yaala gobolka Tigreega iyo jawaab laga bixiyay. kusimaha agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee NISA Yaasiin Faray oo u soo jawaabay qoyska Mukhtaar Robow Abu Mansuur iyo kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab oo saaka gudaha u gashay degmada Balcad iyo dagaal xooggan oo halkaasi ka socda. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. soo dhawaada. aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in wali la isku mari laayahay furinta dagaalka ee Abala iyadoo ciidamada dowladda federaalka dalka Itoobiya ay halkaasi dagaal culus ku wajahayeen kooxda TPLF oo difaac halkaasi kaga jirta. dagaal ilaa shalay socday ayaa la soo tabinayaa in wali la isku mari laayahay iyadoo mar kale maanta la isku laabtay. waxaana halkaasi laga soo sheegayaa in ciidamada dowladdu ay haatan isticmaalayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn balse wali la loodin laayahay kooxda TPLF dagaalyahanadeeda ee ku sugan jiidaasi hore ee Abala. ciidamada dowladda dalka Itoobiya ayaa sheegay in ruqaansi xooggan u sameeyeen dhinaca magaalada caasimadda ah ee Makale balse kooxda TPLF ayaa beenisay oo sheegtay in ciidamada dowladda dib loo riixay. dagaalkan ka socda magaalada Abala iyo waliba duleedka magaalada caasimadda ah ee Makale ayaa la soo sheegayaa in la isku mari laayahay isla markaana labada ciidanba ay halkoodii dhaafi laayihiin iyadoo ciidamada dowladda dalka Itoobiya oo abaabulkoodii ugu dambeeyay sameynayay maalmihii u dambeysay ay haatan wali dhaqaajin laayihiin kooxda TPLF. inkastoo ciidamada dowladdu ay guulo ka sheeganayaan jiidaasi hore ee dagaalka balse wali lama arkayo wax dhaqaaq ah oo xooggan oo ay sameeyeen ciidamada dowladda dalka Itoobiya. dagaalkan ka socda jiida hore ee magaalada Abala ayaa u muuqda mid ka adag dagaaladii hore ee ciidamada dowladda iyo waliba kooxda TPLF ay isku wajahayeen iyadoo halkani ay u muuqato in kooxda TPLF ay difaac xooggan ka gashay iyagoo horeyba u sheegay inay difaaci doonaan magaalada caasimadda u ah gobolka Tigreega ee Makale. waana difaacii ugu adkaa ee ciidamada dowladdu ay kala kulmaan kooxda TPLF bariyihii la soo dhaafay iyadoo ciidamada dowladdu ay horey uga qabsadeen kooxda TPLF magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gobolada Canfarta iyo waliba Axmaarada. waxaana meelahaasi la soo sheegayay in aanay wax dagaal ah xooggan kala hortagin kooxda TPLF ciidamada dowladda ee magaalooyinkaasi waaweyn galay balse haatan kooxda TPLF ayaa u muuqata inay taagan yihiin meeshoodii ugu dambeysay isla markaana ay rabaan in halkan ay ku dhintaan ama ay difaacaan ciidamada dowladda ee duulaanka ku ah dhulka gobolka Tigreega. dhinaca kale kooxda TPLF ayaa sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Itoobiya ay adeegsanayso isla markaana barihii u dambeysayba lagu duqeynayay qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaala gobolka Tigreega ay waxyeello ba'an gaarsiiyeen masaajida ku yaala gobolkaasi. waxaana ay sheegtay TPLF in burbur xooggan ay u geysteen diyaaradahaasi masaajida lagu cibaadeysto oo ku yaala gobolka Tigreega isla markaana bulshada muslimiinta ah lagu bartilmaameedsanayay. kooxda TPLF ayaa sheegtay in aanay jirin sabab loo bartilmaameedsan karayo ama loo duqeyn karayo masaajidada iyo goobaha cibaadada ee ku yaala gobolka Tigreega. waxaana ay sheegtay kooxda TPLF in ciidamada dowladda qaybtooda cirku aanay kala garanaynin shacab iyo waliba TPLF la dagaalamaysa oo ay si wadar ah ama aanay kala jeclaynba inay duqeeyaan isla markaana ay dhibaateeyaan guud ahaanba shacabka Tigreega. waxaana sida ay sheegeen caddayn u ah duqeymaha iyo waliba burburka loo geystay goobaha cibaadada ee aan waxba galabsan. dhinaca kale dadka qaar ayaa aaminsan in kooxda TPLF warbixintan ay haatan soo bandhigtay ay uga jeedo in ay kiciso bulshada islaamka isla markaana ay halkaasi ka hesho taageero ballaadhan oo dhinaca muslimka ah iyadoo dowladda dalka Itoobiyana ay gebi ahaanba beenisay in ay bartilmaameedsatay goobo cibaado gaar ahaan masaajidada
waxaana ay sheegtay in dowladda Itoobiya ay ka reeban tahay in goob dad shacab ay joogaan lagu duqeeyo diyaaradaha si aan duuliyaha lahayn. dowladda federaalka dalka Itoobiya ayaa sheegtay in kooxda naflacaariga ah ee TPLF-tu ay kolba meel cuskanayso, waa sidii hadalka u dhigeen, isla markaana ay haatan ku jirto waayaheedii ugu dambeeyay. wax walba oo ay isleedahay waad ku badbaadina ay sameynayso waa kooxda TPLF-ta. inkastoo kooxda TPLF-tu ay soo bandhigtay cadeymo muujinayay burbur gaadhay masaajida ku yaala gobolkaasi Tigreega, isla markaana ay soo baahisay sawirro laga soo qaaday masaajido burbur gaadhay balse aan la garanaynin goobta ay tahay iyo waliba xilliga ay wax gaadheen masaajidadaasi. dadka dalka Itoobiya oo aqlabiyadiisu ay yihiin dad Islaam ah ayay u muuqataa in haddii warbixinta kooxda TPLF-tu ay xaqiiqo noqoto in dowladda federaalka dalka Itoobiya ay culays xoogani wajihi karayso, isla markaana ay dhumin karayso taageero ballaaran oo dowladdaasi ay ka helaysay shacabka Islaamka ah ee ugu badan dalka Itoobiya. haatan aan eegno kusimaha agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA gaashaanle sare Yaasiin Farey ayaa dhinaciisa beeniyay hadal ay ehelada Mukhtaar Robow ku sheegeen in warbixinta uu ka soo saaray xaaladiisa ay tahay mid aan sax ahayn. Yaasiin Farey ayaa VOA-da u sheegay in Mukhtaar Robow uu ku sugan yahay guri ku dhex yaala xarunta NISA, amnigiisuna uu sugan yahay, isagoo intaas ku daray in mas'uuliyadda ugu badan ee NISA ay tahay in isaga la ilaaliyo. waxa uu sheegay in noloshiisa iyo amnigiisa ay u hayaan sida uu ku sheegay warqadii uu soo saaray, wuxuuna intaas ku daray inaysan jirin wax ku kalifay inay abuuraan waxyaabo aan jirin. sidoo kale wuxuu sheegay inaysan jirin caafimaad darro ama culays gaar ah oo haysta Mukhtaar Robow, isagoo ka hadlayay kuwa ay yihiin shuruudaha aanu buuxin Mukhtaar Robow. waxa uu gaashaanle sare Yaasiin Farey sheegay in haddii qofka la wanaajiyo aysan ka dhignayn inuu shuruudaha u wada buuxiyay. wuxuu intaas ku daray inaysan hadda Mukhtaar Robow aysan ahayn arrimo siyaasadeed waxa loo haysto, balse loo hayo amnigiisa iyo ilaalinta amniga dadweynaha sida uu hadalka u dhigay. waxa kale oo uu sheegay gaashaanle sare Yaasiin Farey in Mukhtaar Robow oo la sii daayo ay ku xidhan tahay isaga iyo dowladda guud. taliye Yaasiin Farey oo ka jawaabayay dalab uga yimid wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa jawaabtiisa waxa uu ku sheegay in Mukhtaar Robow uu halis ku yahay bulshada iyo inay si joogto ah ugu yimaadaan soona booqdaan qoyskiisa, xaaskiisa iyo waliba cidda uu dalbado. dhinaca kale, wararka naga soo gaadhaya degmada Balcad ayaa sheegaya in saakaarnimadii hore ee halkaasi weerar culus ku qaadeen kooxda Al-Shabaab, isla markaana ay gudaha u galeen magaalada iyadoo ciidamadii dowladda ee ku sugnaa halkaasi ay isaga baxeen degmada. xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay waaberigii hore ee saaka dagaal ku galeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. magaalada Muqdishona dhanka waqooyiga uga beegan 35 kilomitir, halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda isla markaana ay saaka baneeyeen. goobjoogayaal ayaa waxay warbaahinta gudaha u sheegeen in dagaal muddo kooban socday kadib ay Al-Shabaab la wareegeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Balcad sida Waaberi Star, Halgan, Horseed iyo Waaberi Irdoole, iyo sidoo kale fariisinkii ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka ee kantaroolka buundada degmada Balcad. intii uu dagaalka socday ayaa wararka waxay sheegayaan in qoriga hoobiyaha uu ku dhacay qoys degan xaafadda Waaberi Star, waxaana ku dhaawacmay 5 ruux oo 2 ka mid ah uu dhaawacoodu daran yahay, kuwaasoo loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ma jiro khasaaro dhimasho ah oo la sheegay inuu ka dhashay dagaalka degmada Balcad ku dhex maray ciidamada dowladda iyo waliba kooxda Al-Shabaab, waxaana wararkii ugu dambeeyay ee na soo gaadhay ay sheegayaan in Al-Shabaab ay isaga baxeen degmada Balcad isla markaana ay dib ugu soo laabteen ciidamada maamulka degmada oo markii hore aaday dhinaca xaafadda Xawataako. mas'uuliyiinta maamulka degmada Balcad ayaan sidoo kale weli ka hadlin la wareegitaanka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ee degmada Balcad, walow markii dambe ay isaga baxeen. akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto, intaas waxaan kusoo koobinaa guud ahaanba wararkiina soo gaadhayay. intaan ku kulmayna warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.